Bismillah, assalaamu calaykum asxaabteyda ummadda Soomaaliyeed waa salaamantiin meel kasta aad joogtiin. Waa walaashii Luul Beauty oo markaan leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabteyda maalmaha waan iska mashquul leh adduunyo howl marka dhamaata hore loo dhahay. Marka waa kaasaa asxaabteyda maanta maxaan ii wadaa walaashiin Luul Beauty and Cooking. Maanta waxaan ii wadaa waxyaabaha timaha aan marsano ani iyo caruurteeda. Timaha waxaan marsanaa saliidan oo ah qumbaha nadiifka oo la cabiro, moos, ukun oo la isku shiiday. Maasha Allah waaye aad iyo aad ay u fiican tahay. Marka waa kaasaa marka asxaabteyda waa kaasaa halkaa waxaa ku jira xabad moose, xabad ukunta aheyd. Hadda waxaa ku darsanaa saliidan waxaa waaye qumbo oo nadiifka cabirka waaye. Furkaas labadiisa ku shubanayna. Marka asxaabteyda waa kaasaa waxaa waa xabada ukunta aheyd, mooski iyo saliidi waa isku soo shiideynaa. Marka timaha aad iyo aad ugu fiican tahay marka timaha mariso oo ku hayso 20 daqiiqo camal oo uga dhaqdo nafaqo. Maasha Allah waaye aad iyo aad u fiican tahay. Marka waa soo shiida isku soo noqonayna. Asxaabteyda marka waa kaas waa soo shiiday cunugta yarta timaha u marina. Nafaqadan aad iyo aad ugu fiican tahay timaha jajabka iyo agoolka iyo waxaas ay ka difaacay. Qumba ku jiro meel oo qumbo ku jiro nadiifane cilad ma ka imaato iyo ukunta aad iyo aad u fiican tahay. Waa kaasaa marka asxaabteyda gabadhayda yarta u mariyaa aad iyo aad u fiican tahay. madax madow way ka dhigay timaha jajabka iyo waxaas dhan ay ka joojinay. Marka waa kaasaa asxaabteyda intaan ka badan waan soo gelin doonaa janaalka insha Allah. Like-ta, share-ta, comment-iga ha iga iloobin.